waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataha koowaad ee shirkadii telefoonada la talaashanaysay casriga internet-aankadayno taas loo helayo waa tiknoolajigii adduunkii shirkadii telefoonada la talaashanaysay casriga internet-aankadayno waa tiknoolajigii adduunkii duulaya magaalada somtalway ka tisqaadeen duulaya magaalada somtalway ka tisqaadeen بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي ونكسن خيارة قيمة بدنا هودنا نقرأ صوتها إيميل كستات شوكتان halkan waa telefishinka qaranka Soomaaliland waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo barnaamijka Kismaalaha hadahan oo kale aad ka dhageysataan kana daawataan raadiyo Hargeysa iyo telefishinka qaranka Soomaaliland labadaba barnaamijkan waxaan ku casuunaa dadyo kala duwan oo u tartami doona ilaa 22 su'aalood oo dhan 3 milyan oo shilinka Soomaaliland waxaan iyagana aad ugu mahadcelinayaa khiyaartay ugu sugan stuudiyaha telefishinka qaranka Soomaaliland oo iyaguna barnaamijka qaybka laba jeer oo kamidna caawin doona dhammaan tartamayaasha barnaamijka ka qayb gali doona meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan daawada ee barnaamijka Kismaal kulanti wanaagsan daawadayaal mar kale waxaan u yeeri doonaa ka qayb qaataha koowaad ee barnaamijka Kismaal ka qayb qaataha koowaad ee barnaamijka Kismaal waxa weeye Mustafa Maxamed Faarax loo saabiyo السلام عليكم مصطفى محمد فارح. عليكم السلام ورحمة الله. كسر دو برنامج كسمان. كدوي. مصطفى واحد تفاصيل قصة أنا أردت هاي أنا شغل كلا يصير إن ياك حاجة قاعد دقنت هاي تباني جدا وده شو. نحن دقنا حافظ الشيخ نور. إيه. وحنا هاي نين قناع صدا وقارمها قناع سيء كشيدة. فكاسن قران. مدة أنت لقيت مكان ولا قناع سيء كشيدة. والله أدوكو دهرتا تدي كم قطعين بدو كم يشيل مكان. من يريده. بدو يريده. marka adigu waxaan ku jiray laado sanad marka atfaa ma sha Allah ganacsi guul aan ku rajeynaa insha Allah barnaamijkeena daawatiyan kale wallahi barnaamijka in badan man daawaday adigu in badan oo la socday barnaamijka marka waan jeclaa inaan marun ka soo qayb galo oo waxaan ku nasiib yeesho deegaan hor imaado wixii calaqayga ka qaado Mustafa marka su'aalahan hore u daawanayay soo baxayeen sidee kula muuqdeen su'aal wallahi runtii su'aalaha markaan daawanayno ee horta anagu isku gurigeyga iska joogno waa su'aalo fudud wada afkaaga ka jawaabaysa laakiin xaaladdu marka kan la soo istaago misir bedel waxay noqon doontaa isbedel insha Allah way insha Allah khayr ba ku rajeeyay waxa aad xasuusnaataa inaan laba jeer min laba ka tuuri doono laba jeerna dadweynuhu caawin doonaan insha Allah fursada ku warsana hadii aynu 10 su'aalood garanayna waxa weeyaan 250 shilinka Soomaaliland hadii dabcan markaas 15 su'aalood aynu garanayna iyagana waxa weeyaan 750 hadii aynu garanno 20 su'aalood oo milyan iyo barhal su'aal ba jirta oo markaas iyaduna milyan iyo 3 milyan bisa ku noqonaysa hadii la yiraahdo insha Allah bismillah wa ku bilaabaya su'aasha koowaad waxay ku oranaysaa suuradaha uu quraanku ka kooban yahay waa ba 100 suuradood ta 104 suuradood ja 114 suuradood ha 118 suuradood شاشة كود حنشعلنا نديو وهاج كلنتي وناكسن أخيارتنا نقول السجن استوديو تلفزيون كقرية Soomaaliland waxaan doonaynaa inaad caawisaan aniga iyo Mustafa Maxamed su'aasha aad naga caawin doontaan aniga iyo Maxamed waxay dooranaysaa suuradaha quraanku waxay ka kooban yihiin ba 100 suuradood ta 104 suuradood ja 114 suuradood ha 118 suuradood imise qof ayaa leh ba ayay sax ku tahay wax ka kooban yihiin 100 suuradood imise qof ayaa leh ta ayay sax ku tahay waxay ka kooban yihiin 104 suuradood imise qof ayaa leh ja ayay sax ku yihiin waxay ka kooban yihiin 114 suuradood aad ugu fiirso Mustafa imise qof ayaa leh ha waxay ka kooban yihiin 118 suuradood Mustafa بدي تذكر سوي حلو ولا واتشاد واحد بقول أفر يتبصر هذا لكن يجوا حدوا السوتشيدين موقت دارتها بدي من غرانسة حلقة في إحدى أنا بقف شك بيجي لها مركوا إسكبر الشدة بدل ما هذا الكين راعينا أي هذا الشدة بدل إن قلداك ور وسعيد تلفت وحوين إحنا ما حبنا أنت قرنا بدافت أدينا سبحانكم أتسين وهجاك تقول الشاء وبقول أفر يتبصر هذا ين وذيك دونا جوابت السؤال شو سأسأجي صح كتاي
su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa fulay hooyadii ma ba goblanto ta muuqato ja weynaato xa seexato. su-aasha jawaabteedaan isku dayo waa qaadagi ba-do ah goblanto fulay hooyadii ma goblanto go-aankaaga u dambeeya sax wey waa hagaag daawadayaal ba oo ah fulay hooyadii ma goblanto jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay. badaa maamahadana waynu hellay soo maa badaa maamahadana waynu hellay. 3 nebigu naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaatee wuxuu soo xajay nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu soo xajay ba 1 mar ta 2 mar ja 3 mar xa 4 mar. bal mar labaad dadweynaha ku noqon hagaag daawadayaal mar labaad ayaan ugu soo noqon doonaa annagoo dabcan markii hore aada idiga mahad celinaynaa sidaad noo caawiseen sidaad noo caawiseen mar labaad ayaan u baahanay inaad na caawisaan. waxa ay weydiintu idin odhanaysaa nebigu naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ahaatee wuxuu xajay ba 1 mar ta 2 mar ja 3 mar xa 4 mar. imise qof ayaa leh ba 1 mar ayuu xajay? imise qof ayaa leh ta 2 mar ayuu xajay? imise qof ayaa leh ja 3 mar ayuu xajay? imise qof ayaa leh xa 4 mar ayuu xajay? waan isku soo noqono mustafe ilaa 21 qof waxay nagu yidhaahdeen ja oo 1 mar ayuu xajay. 8 qofna waxay nagu yidhaahdeen waa xa oo 3 mar ja oo 3 mar buu xajay. tii horena maxay ahayd? ya tii hore ilaa 28 qof ba 1 mar jadaas oo 3 mara ja oo 3 mara oo ahaa 15 qof 15 qof 13 qof mana sidee aad ma badnayn badi dadkaasi laakiin waxay nuna waa ba oo 1 mara inaan laba ka tuurnaan kusii xaqiijino si aan labadooda u kala saarano oo fursada ku banna. biido 1 mara weyn ba oo 1 mara oo dadka badidoodina yidhaaheen haddii dadka faraha badani qalad noqdaanoo dadka ka koobane 3 jeera ilaa 8 qof ay sax noqdaan ka war si allon bay noqon maa dadka badan baan ku raacnaa. go-aankaaga u dambeeya nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa aatee wuxuu soo xajay ba oo 1 mara. go-aankaaga u dambeeya waa hagaag daawadayaal ba oo 1 mar ayaynu wadeegi doonaa weydiinta jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay. su-aasha 4 xayawaanka socodkiisa iyo qaabkiisa tareenka laga dheegtay waa xayawaanka socodkiisa iyo qaabkiisa tareenka laga dheegtay waa ba subxaanyada ta gorgorka ja abgurida xa hangaraaraca. su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa xaad oo hangaraaraca xa oo hangaraaraca ku adkaysanaysaa? waan ku adkaysanaya. tareenka isku egaya markaa tareenku waa mid dheer de iyo hangaraaracuna hangaraarna saas ma jiro nuga badan yihin. xa oo hangaraaraca ayaynu wadeegi doonaa weydiinta warcelinta jawaabtaasi ayaynu wadeegi doonaa xa oo hangaraaraca. jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay. 5
magaca ay wadaagaan jinka iyo insigu ee qur-aanka lagu sheegay waa magaca ay wadaagaan jinka iyo insigu ee qur-aanka lagu sheegay waa ba addoon ta saqalaan ja cayayaan ja caynaan xa caalam su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa ba'da wey ba oo ah addoon waxay u kaarhsan maan malaynayaa weli maynaan isticmaalina laba kaa tuura sama laba fursaday u kaarhsan waa magaca ay wadaagaan jinka iyo insigu ee qur-aanka lagu sheegay su-aashaastan jawaabteeda adigu isku dayo waa ba'daas wey ba oo addoona magaca ay wadaagaan jinka iyo insigu ee qur-aanka lagu sheegay waa ba addoon ta saqalayn ja caynaan xa caalam waa ba oo addoona go-aankaaga u dambeeya waa hagaag daawadayaal ba oo addoona ayaynu wadeegi doonaa warcelinta jawaabta ayaynu wadeegi doonaa jawaabtu sidaasi ayay qalad ku tahay waa saqalayn ama labadii la culaysiyey aada iyo aada loogu sacadiyo waagaag daawadayaal kulanti wanaagsan ayaan mar kale idin leeyahay waxaanu yeeli doonaa ka qayb qaataha labaad ee barnaamijka qayb qaataha labaad ee barnaamijku waxa weeye xamda faarax maxamed xamda faarax maxamed aa loo sacabiyo السلام عليكم حمدة فرحان محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسر دو برنامج كسمة. مندوبة ولا. حمدة حديقة ورتها إن الأرضية هاي إن تقول شوكتو هؤلاء كلامي تفاصيل نقدر أشرح نسمع. أنا أرضيت بانهاي. حاجة دقتها. إمارات ديكيش سنتر. ما شاء الله. سكت دقيقة دوس كسرة دقتها. حمدة إن برنامج كم هو دعوة يمكن. والله السعودية أفر بدن بدأونا يمكن. أفر بدن بدأونا. ما شاء الله. حمدة وحلا ليش قاعدين في تدك فيسبوك كسر شوية بس ما شاء الله. هذا برنامج كان واحد هاي تدرس كحران فيسبوك أما برتك اسمه له إن بدك كسر شوية. إن سؤالها ممكن فيسبوك كسر شوية بس كور سهل. نصيب في اسمه له صباح لكن مركي صباحي والله معقول وين جاوي. ما شاء الله. أنا برنامج تكتوج عليه. دور شربان كارك العقو شفتوي نصيب في صبح واي. ويا حمدة. برنامج كوا gurigan waa ka daawan jirtay habeenkii waa daawada barnaamijka bal waxaa nagala qayb gala namo hablo dad fara badan ma ka qayb gala dadkaas sidii kula muuqda barnaamijka qayb galay walaahi dad qaar aqoon lahayn buu imanayay laakiin su'aalaha soo baxay sidii kula muuqda dadka guriga joogta su'aaluhu qaar ka baar weyn u jiraan oo dhaqan ku xidhan qaar kula filo aad garanaysid inuu jiraan xamda aad wax xasuunataa laba jeer laba ka tuuri doono laba jeerna ay dadweynuhu caawin doonaan intaan haysanaa lixda kalena insha Allah isku tagi doonaa wixii dhaqan xagaas isku gargaxi la fadhiyaadii isku sii adkaadaanba waa ku bilaabayaa bismillaah muraayada ka hortaala xamda muraayada ka hortaala su'aasha koowaad waxay ku oranaysaa magaca loogu yeero haweenkii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa magaca loogu yeero haweenkii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa ba xaasaskii nabiga ta muuminiin ja dumarkii nabiga xa haweenkii nabiga bismillaah tan shaashada jawaabta isku day waa ta oo noqonaysa muuminiin ta oo noqonaysa muuminiin ina laba ka tuuriyo xamda dadweynaha wayna harsay maya tan garanaya walitay waa dhigatay ma sha Allah ta oo muuminiin ayeen wadeegi doonaa jawaabtu sidaas ayay sax ku tahay su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa hunguri wax ka weyn la mariyaawuu hunguri wax ka weyn la mariyaawuu ba dhargaa ta dhintaa ja qoyaa xa dilaaca bismillaah tan su-aasha jawaabta isku dayo waa xa oo noqonaysa dilaaca xa oo dilaacaya hunguri wax ka weyn la mariyaawuu dilaaca go-aankaaga u dambeeya maya oo dilaaca marka uu dhargaya ma dhargay maya dhargamay dhintaana may qoyaana may dilaaca sax ku tahay dilaaca ma wey waa hagaag xa oo dilaacaya ayaynu wadeegi doonaa jawaabtu sidaas ayay sax ku tahay
حمدة صدح سؤال صدحة أصحابك أبو بكر صديق قصة أي نانيست صديق وقب حضيوا أصحابك أبو بكر صديق قصة أي نانيست صديق وقب حضيوا با رمينتي نبيك تا هو قامنتي مسلمين تا شا دالمدي نبيك حا مدنا بسم الله تن سؤال جابت اسكو داي waa ba oo noqonaysa rumayntii nabiga ba oo noqonaysa rumayntii nabiga isaga wuu rumeeyay xagga ragga aad ugu fiirso xamda markii analyst loo bixiyay meesha ka raacday markaa la weydiiyay habeenkii micraajkana nabiga la dheelmiyay soo noqday nabiga quraash rumaysan weyday isaga ay ku rumaysteen dadana saas loo kuniyada lagu baxdaa ma hadan naanistani marka waxay noqonaysaa ba oo rumayntii nabiga ba oo rumayntii nabiga dheelmidin micraajkana way nagu qoran tahay jaa dheel madii nabiga markii nabiga la dheeliyay ama ha waa jaa dheelmidin nabiga ma arrintan kala jeeda kelmada hore u fahmay go'aanka gaar waa dheelmidin nabiga habeenkaas u baxday habeenka leelos al-israa wal mi'raaj habeenkii nabiga la dheelmiyay soo noqday marka jaa ku adkaysanaysa jaa ku adkaysanaysa dheelmidin nabiga waa hagaag jaayin wadeegi doonaa jawaabta su'aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su'aashu sidaasi ayay sax ku tahay xamda afar baynu soo gaarnay nabigeenna sala allahu calayhi wasalam adeeradii waxaa ugu weynaa xagga da-da nabigeenna sala allahu calayhi wasalam adeeradii waxaa ugu weynaa xagga da-da ba xaaris binu cabdi mudalib ta xamse binu cabdi mudalib ja jacfar binu cabdi mudalib xa cabaas binu cabdi mudalib بسم الله تن سؤال جابت اسكو تا او حمزه بن عبد المطلب تا او حمزه بن عبد المطلب حمزه لما مرد دوينها هي هل مرينا لبا كاتورا يلا بشيرين لبا كاتورا 50 كدي لبا كميدا انا كاسار دونا با او حارس بن عبد المطلب هي حق عباس بن عبد المطلب بي حارث بن عبد المطلب بقى حارث بن عبد المطلب حارث بن عبد المطلب وقال جوابت السؤال شاسين وذيك دونا جوابت السؤال شو سيدا سيايين صح كتاي حمد شنبا سوغان سؤال شنات dalka Mareykanka gobolka ugu baaxadda weyni waa dalka Mareykanka gobolka ugu baaxadda weyni waa ba Ohio ta Washington ja New York ha Alaska tin wabiga baarweytay shabalku ee New York ja New York Mareykanka dameena arag su'aal naga weyn laakiin ina laba ka tuuro hal mar oo kale ay u kaarsan iyo hal mar oo dadweynaha إن الشمال لأن الويديان بيت قبل كوجين سواء ينبغى معلومات ذونا عندنا تقنين كوره اللي إن شاء الله قوانك قاد تي أو واشنطن كيقبل واشنطن عاصمة تي أو واشنطن عاصمة دي قوانك قاد حمدة فارح ينقول بدوينه دوينه مدينة يعني قار مريكا كيمي كيلا لقيابه waagaag daawadayaal weydiintan ayaan doonaynaa naga caawisaan shan ayaan marnaa waa markii koowaad aan idii baahano aniga iyo markaasi xamda weydiintu waxay idin odhanaysaa dalka Mareykanka gobolka ugu baaxadda weyni waa dalka Mareykanka gobolka ugu baaxadda weyni waa ba Ohio ta Washington ja New York ha Alaska imise qof ayaa la waa ba Ohio imise qof ayaa la waa ta Washington imise qof ayaa la waa ja New York imise qof ayaa la waa ha Alaska وهاك ناس وصلنا قلنا حمدة
badi dadkaasi way ka aamuseen intay garanayeen bay dhaaftee xaasidnimana kaan baan u malaynaya laakiin washington ohio hal qof baa inagu yidhi washington sidoo kale hal qof baa inagu yidhi new york 2 qof baa inagu yidhi alaskana 3 qof laban kasii tuurna waagaag 2 ka mida ayaan ka saari doonaa waa isu soo haray ta oo washingtona oo hal qof ina yidhi iyo xa oo alaska oo 3 qof ina yidhaaheen sida ku eg halka qofka ku raacay go'aanka gaad xamda 3 qof ayaa waxay nagu yidhaaheen xa alaska hal qofna waxay nagu yidhi waa t oo washington alaska xa oo alaska go'aankaaga u dambeeya codka kor u qaad xamda xa oo alaska alaska saddex qof ku dhacan dalka maraykanka gobolka ugu baaxadda weyni waa xa oo alaska jawaabta su-aashaasi aynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay mar kalena aada loogu sacabiye xamdiya saxaa qofka su-aasha lixaad waxay ku odhanaysaa axaadiistii nebiga qofkii ugu horreeyey ee jamciyey waa axaadiistii nebiga qofkii ugu horreeyey ee jamciyey waa ba khaalid bin waliid ta sacad abi waqaas ja cabdilaahi binu cabdicasiis xa abi hurayra xa oo abi hurayra xa oo abi hurayra go-aankaaga u dambeeya hal maroo mada waxay u kaadhsan un dadweynaha jamciye mana waa qofkii ururiyaan filayaanata abi hurayra nogaay xa oo abi hurayra go-aankaaga u dambeeya xamda ti oo sacad bin abi waqaas maya dadweynaha nagu dhig dadweynaha dhibna waa hagaag waxaan doonaynaa inaad nacaawisaan aniga iyo xamda runtii meel adag baan maranaa 6 baan maranaa axaadiistii nebiga qofkii ugu horreeyey ee jamciyey waa ba khaalid bin waliid ta sacad abi waqaas ja cabdilaahi ibnu cabdulcasiis xa abi hurayra imise qof ayaa le waa ba khaalid bin waliid imise qof ayaa le ta waa sacad abi waqaas imise qof ayaa le waa ja cabdilaahi binu cabdulcasiis imise qof ayaa le waa xa abi hurayra aan isu soo noqono amda badi dadkaasi way nagu raaceen waxay nagu leeyahan waa xa oo abi hurayra ja oo cabdilaahi bin cabdicasiis waxaasoo dada weynu khilaafnaamaya abu hurayra wuxuu ugu badnaa xadiisada nebiga asxaabiga soo wariyey khaalidna horta dagaaladu ku caanaha xagga xadiisada kuma sacad bin abi waqaas cabdilaahi ku egba jaada ja oo cabdilaahi bin cabdilcasiis xamda faarax xamda farxaan meel adag baynu marinaa runtii badi dadkaasi waxay nagu yidhahdeen waa xa oo abi hurayra go-aan ka gaadh marka cabdilaahi bin cabdicasiis nogaay ja waa cabdilaahi bin cabdillaahi bin cabdulcasiis
xa oo abu hurayra dadkaasoo dhan in idhaaheen baan ka nimaadnaa ja oo cabdullaahi binu cabdilcasiisa baan nimaadnaa waa hagaag ja oo cabdullaahi binu cabdicasiisa ayaynu eegi doonaa xamdi go-aanka dadkaasoo dhan soo jeediyeen ayaa markii ugu horreysay ay ku gacan saydhay jawaabta su-aashaasi ayaynu markaasi wada eegi doonaa ja oo cabdullaahi binu cabdilcasiisa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay mar kalena ha loo sacabiyo su-aasha sideedaad su-aasha toddobaad waxaynu odhanaysaa ummadda nebi moxamed waxa ugu run sheeg badnaa ummadda nebi moxamed waxa ugu run sheeg badnaa ba cismaan binu cafaan ta bilaal binu rubaaxa ja abu sufyaan xa khaalid binu waliid ja oo abu sufyaan ja oo abu sufyaana xamda faarax aada uga fiirso ilaa laba kaa tura way dhamaadeen barmana dadweynina way dhamaadeen sidoo kale ninga maskaxdiis ku saarnay ja oo abu sufyaan nuga ja oo abu sufyaana ummadda nebi maxamed waxaa ugu run sheeg badnaa ja oo abu sufyaana go-aankaaga u dambeeya xamdi go-aanka gaadh waqtiga socda ja oo abu sufyaan nuga waa hagaag ummadda nebi moxamed waxaa ugu run sheeg badnaa ja oo abu sufyaana ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay qalad ku tahay waxay sax ku tahay cismaan bin cafaan aada lagu sacabiya wagaag daawadeel waxaan u yeedhi doonaa ka qayb qaataha saddexaad ee barnaamijka ka qayb qaataha saddexaad ee barnaamijku waxa weyaan cabdilaahi cabdiraxmaan xuseen ha loo sacabiya cabdilaahi asalaamu calaykum cabdilaahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawo barnaamijka kismaan وندوي. cabdillahi waxaa tafaasiiliga saanan ardayta halka aad degantay anigii daawadayaasha wixii kale macluumaad na sii karta waxaan tegay magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Xaraawo. xaafadda Xaraawo inaad barnaamijkan daawatiyeen kala cabdillahi in badan studio ka soo qayb galay. in badan baad joogtay barnaamijka macluumaadkiisa wada socota والله صار si fiican. waxaad aad u xasuunataa inaad laba jeer min laba kaa tuur jaran laba jeer dadweyne caawin doonaan insha Allah. بسم الله وانا كو بلابي دونا سؤال كواد waxay ku oranaysaa nafleyda mar ku socota afar marna ku socota laba marna ku socota saddex nafleyda mar ku socota afar mar ku socota laba marna ku socota saddex waa ba daayeerka ta diinka ja dabagaalaha xa dadka daayeerka ba oo daayeerka cabdillaahi nafleyda mar ku socota aada uga fiirso mar ku socota afar marna ku socda laba marna saddex ilaahay taas inaas martay laakiin qaar baa kan sahay inay Dadweyne- garanayaan dadweyne dadweynaha u dhibanayaan waa hagaag waxaan u dhiibi doonaa akhyaarta nagula sugan stuudiya waxaan doonaynaa inaad naga caawisaan su-aasha kowaad su-aasha kowaad waxay odhanaysaa nafleyda mar ku socota afar mar ku socota laba marna ku socota saddex waa ba daayeerka ta diinka ja dabagaalaha xa dadka imise qof ayaa le waa ba waa daayeerka imise qof ayaa le ta waa diinka imise qof ayaa le ja waa dabagaalaha imise qof ayaa le waa xa dadka aada ugu fiirso isku soo noqono cabdillaahi badi dadkaasi waxay nagu yidhaahdeen waa dadka waxooda waa soo jeedin laakiin go-aanka adiga iskale أنا قرآن ya قرآن dadka ku raacna نفليدا
waan filayda go-aanka gaadh xa oo dadka aynu ah ku raacna ku raacna dayna qaldaan ka war maasi waa hagaag xa oo dadka ayaan ku raaci doonaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay macnaha waxaa filayaa un qofku markuu yar yahay afar wuxuu ku socdaa u gurguurtahay afartaba ku socdaa markuu weynaadana labuu ku soconayaa marka uu da- sii noqdana saddex kutibaha iyo labadiisii lugood sax bay saasay sax ku tahay su-aasha labaad in markaa wareeganaa su-aasha labaad waxay ka odhanaysaa bisha ramadaan waxay gashaa sanadka islaamka ramadaan waxay gashaa sanadka islaamka bisha ba toddobaad ta sideedaad ja sagaalaad xa tobnaad Ramadan waxay ka gashaa ramadaan ma ku Tan jirnaa imika kale. imika kale waa bilaha islaamka waxay ka gashay ma toddobaa ma sideed ba ma sagaal ba ma toban ba tiinan badan u eegnaa cabdillahi sideedaad bay ka gashaa ta oo sideedaada ah inaan laba kaa tuuro ayay ku harsan iyo dadweynaha ayuu saasan ku san taa ku adkaysansa go-aankaaga u dambeeya ramadaan waxay gashaa sanadka islaamka bisha sideedaad ah go-aankaaga u dambeeya kaanka waa hagaag ta oo sideedaada ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay qalad ku tahay waa sagaalaad waan dadweyn aada loogu sacbiyo waa hagaag daawadayaal kulanti wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay waxaan u yeedhi doonaa ka qayb qaataha afraad ee barnaamijka ka qayb qaataha afraad ee barnaamijku waxa weeye muna cabdiwahaab maxamuud muna cabdiwahaab maxamuud loo sacbiyo asalaamu calaykum muna cabdiwahaab maxamuud عليكم السلام kusoo dhawo barnaamijka smaan كل واحد muna waxaa tafaasiil iga siisaa inaad ardayo tahay haddii guriga aad joogto halka xaafadda aad degantahay aniga daawadaasha wixii macluumaad na siin karto waxaan deganay xaafadda Jijgeera magaalada Hargeysa waxaan dhigtaa dugsiga sare Nuuritiin ardayda sanadkan furka kala saana maasha allah muna barnaamijkan hore u daawatay kan barnaamij baan daawaday barnaamijka waa daawatay macluumaadkiisa waad la socotaa si fiican haye waxaad aad u xasuunataa inaan laba jeer min laba laga tuuri doono laba jeer dadweyne ku caawin doono afartaa jeer aan haysan waana ku bilaabi doonaa muna bismillah su-aasha koobaad su-aasha koowaad waxay ku odhanaysaa bisha shaydaanka la xidhxidho waa bisha shaydaanka la xidhxidho waa ba rajab ta shabcaan ja ramadaan xa dulqacda su'aasha jawaabteeda haddaan isku dayo bisha Ramadaan ja ja oo ramadaan ku adkaysanaysaa si fiican waa hagaag daawadayaal ja oo ramadaan ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad waxay ku odhanaysaa maansada anuunbaa hooyada ahaa waxaa tiriyey abwaan ba hadraawi ta xasan ganay ja cabdiqays xa weersame su'aasha jawaabteeda dadweynaha dhigan dadweynaha ma dhibna waa hagaag daawadayaal waxaan doonaynaa inaad naga caawisaan su-aasha labaad su-aasha labaad waxay idin odhanaysaa maansada anuunbaa hooyada ahaa waxaa tiriyey abwaan ba hadraawi ta xasan ganay ja cabdiqays xa weersame imise qof ayaa le waxaa tiriyey ba hadraawi imise qof ayaa le waxaa tiriyey ta xasan ganay imise qof ayaa le ja waxaa tiriyey cabdiqays imise qof ayaa le xa waxaa tiriyey weersame aan isku soo noqono muna cabdiwahaab badi dadkaasi waxay nagu dhahaan ba waxaa tiriyey maxamed ibraahim warsame hadraawi
dadkan ku raacaya ba hadraawi dadka ku raacna waa hagaag ba oo hadraawiya ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha saddexaad maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey waxa ay ahayd maalintii nebi muuse ilaahay badbaadiyey waxay ahayd ba carafo ta jimce ja salaasa xa cashuura cashuura xa oo cashuura go-aankaaga ugu dambeeya meeshan ku adkaysanaya cashuura waa hagaag daawadayaal xa oo cashuura ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay afar ciyaar dhaqameedka tidhaahda alabdhe alabgariirdhe goodirow rigdhe waxaa laga ciyaaraa ciyaarta tidhaahda alabdhe alabgariirdhe goodirow rigdhe waxaa laga ciyaaraa ba gobolka sool ta gobolka sanaag ja gobolka awdal xa gobolka saaxil 50-50 laba ka mida ayaan kaa saari doona waxaa isku soo hadhay ta gobolka sanaag iyo ja waa gobolka awdal ciyaarta horena ma maqashay anu iyadoo heesaaban maqlayba alamdhe alamgariidhe goodirow regdhe balowdhe baarbaxaydhe laladana la-aanta miyaan ladaa iyadoo lagu soo gabagabeeyaan dhegeysta laakiin iyadoo heesamaan iyadoo ciyaara inaan arag ba laga yaaba gobolka awdal baan arkin laakiin gobolka awdal ciyaar dhaqameedkan gobolka gaan ta oo gobolka sanaaga iyo ja oo gobolka awdala awdal baan ku adkaysanaya muna gobolka awdal ta oo gobolka sanaaga iyo ja oo gobolka awdala isku saaray gobolka gaan gobolka awdal waxaa laga ciyaaraa ja oo gobolka awdala go-aankaaga u dambeeya muna cabdiwaahi gobolka awdal ja oo gobolka awdala markalaan fursad ku siinaya go-aankaaga u dambeeya gobolka awdal baan ku adkaysanaya ja oo gobolka awdal muna yiri stage waxaa soo saaray laba gobol oo mid yahay gobolka sanaag midna yahay gobolka awdal ta gobolka sanaag ta oo gobolka sanaag go-aankaaga u dambeeya ta gobolka sanaag baan ku adkaysanaya ta oo gobolka sanaaga waa hagaag jawaabta su-aashaasi ta oo gobolka sanaaga ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay waynu siganeemanaya su-aasha shanaad su-aasha shanaad waxay ka odhanaysaa xanuunka dhugatadu wuxuu ku dhacaa xanuunka dhugatadu wuxuu ku dhacaa ba lo-da ta fardaha ja geela xa adhiga sheesha dadweynaha dadweynaha u dhiibana waa hagaag waxaan doonaynaa inaad nacaawisaan aniga iyo muna cabdiwahaab waxaanu maraynaa su-aasha shanaad su-aashuna waxay odhanaysaa xanuunka dhugatadu waxa uu ku dhacaa xanuunka dhugatadu waxa uu ku dhacaa ba lo-da ta fardaha ja geela xa adhiga imise qof ayaale waxa uu ku dhacaa ba lo-da imise qof ayaale ta waxa uu ku dhacaa fardaha imise qof ayaale ja waxa uu ku dhacaa geela imise qof ayaale xa waxa uu ku dhacaa adhiga aan isku soo noqono 7 qof oo ka mid waxay nagu yidhaahdeen xa oo adhiga laakiin badi dadka meesha fadhiyo dhan waxay nagu yidhahdeen waa ja oo geela dadka badan ma ku raacaysa dadka badan waa ku raacana dayna qaldaan dadka badan ka wada dayna saxaana maasayin ja oo geela ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay 6 su-aasha 6aad
ninkii ugu horreeyey ee dowladdii cabbaasiyiinta madax ka noqdaa waxaa la odhan jiray ninkii ugu horreeyey ee dowladdii cabbaasiyiinta madax ka noqda waxaa la odhan jiray ba abu cabbaas ta abu xamsa ja abu qaas xa abu karaama أبو عباس ba oo ah أبو عباس abu cabbaas ku adkaysanaysaa waa hagaag daawadayaal ba oo abu cabbaas ayaynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashu sidaasi ayay sax ku tahay toddoba ayaynu soo gaadhnay su-aasha toddobaad waxay ku odhanaysaa waddamada dhaqda riyaha adduunka ugu badani waa waddamada dhaqda riyaha adduunka ugu badani waa ba yaman iyo ciraaq ta sacuudiga iyo afghanistan ja etoobiya iyo soomaaliya xa jayna iyo hindiya 50 مرة هرسنا mar bay u kaashadeen labakaas 50 laba ka mida ayaa kaa saari doonaa waxaa isku soo hadhay ta sacuudiga iyo afghanistan iyo xa oo ah jayna iyo hindiya تا سعودية أفغانستان ta oo ah sacuudiga iyo afghanistan go-aankaaga u dambeeya mama cabdiwax تا سعودية كنت كسني أفغانستان waddamada dhaqda riyaha adduunka ugu badani waa ta sacuudiga iyo afghanistan ku adkaysanaysaa go-aankaaga ugu dambeeya ها go-aankaaga ugu dambeeya محا تشيني هندي codka kor u qaad تا سعودية أفغانستان ما كنت كسني ta sacuudiga iyo afghanistan waa hagaag daawadayaal jawaabta su-aashaasi ayaynu wadeegi doonaa waddamada dhaqda riyaha adduunka ugu badani waa ta sacuudiga iyo afghanistan jawaabta su-aashu sidaasi ayay qalad ku tahay waa jayne iyo indiyaada lagu sacabiyo وهجاج ملكنا أيام كنا تيونا كسين دلنا أي طبعا برنامج كان ترتمياش كان حجايون هذا سكسي بلا بدونا سي شادو حيسوق هذا وقت يجري إن حفيسيد إن يملك استوات شوكتان أنو يسوي دين شرني ويدين تأدور عليهم كسوة سميسان عدي ورعليهم كسوة سميسان أبل منتي أنا قلت لك الله أنا مركز سين شرني أن برنامج كان كيكو ري ويدين تي أنو يسوي ديني وحياة هيد أصحابي سيدا عد مجلس القرآن كاللوجو شيء وا أصحابي sida cad magaciisa qur-aanka loogu sheegay waa barnaamijkan kii ka horreeyey kii kasii horreeyay ayuu dabcan ahaa cali bin abi daalib oo ba ta cismaan binu cafaan ja cabdilaahi ibnu mascuud xa sayid ibnu xaarith barnaamijkan kii ka horreeyey sidaan ku tilmaanay sayid ibnu xaaris ayuu ahaa waxaanan u ballan qaadnay dabcan inaan isla barnaamijka ku guddoonsiin doono qofkii ku guulaysta waxaana nasiibka markaasi u helay inuu ku guulaysto ninka magaciisu yahay muuse axmed cali muuse axmed cali dabcan oo markaasi aan jecelahay inuu stuudiyaha igula sugan yahay aada lagu sacabiyaa la soo dhaweeyo ee muuse السلام عليكم موسى احمد علي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تلفزيون قرنك الصومالي انا برنامج كسمان. وان دوهي موسى waxaan kusoo jawaabtay su'aashan Sayyid ibn Haris oo si cad quraanka lagu sheegay magaciisa. In halkay joogtay markaa su'aasha kasoo jawaabtay. waxaan joogay Burco. magaalada Burco. wala Burco joogay. xarunta gobolka Togdheer. gobolka Togdheer. aad baan kaga mahadcelinaa goorma markaa Burco ka soo baxday gaaleed. waxaan ka soo baxay shalay anigoo dhaxal soo socda la soo horreeyay kii hore cabaar Burco hargeysan deganahay waa shaqo. Burco shaqo joog. magaalada Burco markaa xageed ka daawanaysa iminka meerada ka daawanaysa guriga joogtay ma waxa ka daawanaya hodhaal abka la yiraahdo ciyaar baan daawanayo soo gashay waa loo barnaamij horta aad u qaaliya waxaan jeclaan lahayn la kala duwo barnaamijka ciyaaraha iga begatay marka kadib markii su'aasha ka soo joogtay marka su'aasha ka soo joogtay ma filaysa marka inay ku guuleysan doonto wallahi waa filay haa inay ku guuleysan doonto sababtoo joogtay inay guuleysan barnaamijkan ma daawataa haddaad daawatay sidee kula muuqdaa barnaamijkan waan daawadaa aad baan u xiiseeyaa muddo intii u bilaabmayba dhowr kale badan ugu socday
barnaamijkan waa barnaamij ma jeceshay inaad kasoo qayb gasho aad baan u jecelahay tartanka markaa kasoo damala da'dii dhaafay oo dhalinyarta lagu dhiirigelinayo da'daadii daa kale kasoo qayb geli kartaa insha allah adeegyadii lagu talagalaan guddoonsiina haddii la yidhaahdo waa flash 4G plus runtii oo markaa wireless f iyo wax walba laho markaa haddii la yidhaahdo macluumaadka ku daawan doontid aad iyo aad baan ku hambalyeynaa وهاجاك داوديال انت aynaan weydiinta habeenkan caawa warcelinta aad ku soo sameyn doontaan aanan idin soo weydiinin waxaanu eegi doonaa weydiintii ku horeysay ee warcelinta aad ku soo sameyseen cidda ku guuleysatay weydiintii ku horeysay waxay ahayd asxaabigii ugu horeeyay ee quraanka kor u qaaday akhriskiisa xilligii lala baqan jiray diinta islaamka ee qarsoodiga ay ku fideysay waxa uu ahaa ba Bilal bin Rubaha ta Usman bin Affan ta Abdullah ibn Mas'ud ha Khalid bin Walid waxa ay warcelintu saxdii tahay inuu ahaa Abdullah bin Mas'ud dad aad u tiro badan ayaa runtii warcelin ku sameeyay oo weydiintaasi ka soo jawaabay iyada oo kadibna uu nasiib u yeeshay inay ku guuleysato ama nasiib ay u yeelatay haweeneyda magaceeda la yiraahdo Khadra Abdullah Hussein oo joogta magaalada Boorame xarunta gobolka Awdal ee Khadra Hambalya ayaan leenahay dabcan shirkadda Samtal goobtii ugu dhow ay ka qaadan doonto haddii la yiraahdo hadiyada loogu tala galay iyada oo sidoo kale markaasi warcelinta ay ku soo sameysay lala soo hadli doono kadibna abaalmarinteeda la guddoonsiin doono hase yeeshee diyaar garoow meel kasta oo joogtaan weydiinta habeenkan caawa aan soo weydiinayna weydiinta caawa waxay dooranaysaa waxaan ahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaale afmaldahanayaasha beydkan gobayga ku jira waa ba silan sugan ta ekeeye ja qofayn ha shareero mar kale aan ku celiyo waxaan ahay macaan iyo qaraar meel ku wada yaale afmaldahanayaasha beydkan gobayga waxa uu gelayaa ba silan sugan ta ekeeye ja qofayn ha shareero dabcan waxaad warcelinta saxda ku soo diri doontaan lambarka gaaban ee 822 waxaad 822 ku soo qori doontaan ba ta ja tuus markaas sax ku yahay waxaan ugu dambeyntii aad ugu mahad celinaya akhyaarta nagula sugan studio telefishinka qaranka Soomaaliland oo dabcan barnaamijkan qayb ka ahaa laba jeer oo kamid ah dadka halkan caawinayay sidoo kale waxaan ugu mahad celinayay iyagana tartamayaashii barnaamijka gala qayb galay ee halkan soo fadhiistay haddii la yiraahdo maalinta berita ayaynu tartamayaasha kale halkaas ka sii ballan qaadi doonaa ugu dambeyntii waxaan aad ugu mahad celinayay akhyaarta magacyada xagga dambe ka soo bixi doonaa barnaamijkan ka qayb qaatay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan kariim kadib telefoonada la talaasanaysay casriga internetan tagayno taas loo helayo waa technology adduunka shirkadii telefoonada la talaasanaysay casriga internetan tagayno waa technology adduunka duulaya magaalada Somtal way ka tisqaadeen ulaya magaalada Somtal way ka tisqaadeen bisha Somtal mobilkaaga bisha Somtal gurigaaga bisha Somtal mobilkaaga bisha Somtal gurigaaga waa tirkii isgaarsiinta oo dadka wada tilmaamay kadib telefoonada la talaasanaysay casriga internetan tagayno taas loo helayo waa technology adduunka shirkadii telefoonada la talaasanaysay casriga internetan tagayno waa technology adduunka duulaya magaalada Somtal way ka tisqaadeen ulaya magaalada Somtal way ka tisqaadeen